Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Saacada ujeedin kaalinta labaad ku jirnaa oo konton iyo toddoba dhibcood leenahay. Real Madrid kaalinkooda ku jirto lix iyo laba dhibcood leedahay. Koobka qaadna waxaa kamid ah Super Cup qaadnay. Koobkan Del Rey final waa Real Madrid iyo Barcelona final koobkan Super Cup waa qaadnay oo UEFA Super Cup waa soo qaadnay. Waxaan kaloo soo qaadnay Club World Cup-ka. Marka hadda meeshaan dhib ku jira xoogaa yar. Quarter final Champions League Newcastle I know waxay ugu geedeen Real Madrid and Atletico Madrid ay ugu doogeen marka Atletico Madrid qalad yar dhacay kooxda anagu wax gudbinaya similada marka quarter finalka hadda hor ka imaanay kulankan ugu horeeyay kulankan El Clasico waaye oo hadda Real Madrid iyo Barcelona isku baxayna Stadio Bernabeu waaye koobkan ande kulankan waa like Barcelona hadda uma soo dhawo Real qaadi doono uma eko waa kana son kon xamlana gooshiisa ugu horeeyay dalna son waa kana wada liig gooshiisa ugu horeeyay daqiiqadii 12aad son ayaa dhigay gooshiisa ugu horeeyay waxaan u maleynaa kulankan waa kulankii lagu tijaabi lahaa El Clasico sababtoo ah Vinicius Junior sano kala ku bedelay fahmino waa afar gool leeyahay 26 kulan abo wax badan oo dheelo wallahi shaaf wax naqsan yahay ma sadii kow daqiiqo markay mareysay ninkii Lewandowski xal aan TikTok ma baba labada ku cunay wallahi waa kana ande Ansu Fati waa soo saaray oy santa lama noqoto wallahi Barcelona si markii loo fiiriyo kubad ahaan way naga fiicnaayeen oo way naga kubad fiicnaayeen waa kubadooda ka faa'iideysanayo wallahi waa kana Ismail Dembele waa galay cagta wow no lane gool ku hormarnay keenay gashaan allahay sama filneenin no dooryaalka waxa umaleynaa reaction dhibcood nagu lahaaya Real Madrid way badinayeen 5 dhibcood way sii badanayeen hore u sii soconayeen baatiba ku taa wallahi waa murugaysan waxaan wax laga dhaliyo horta bismillah midda kale waxaan qaab meesha u buuda ay ka sii daran baani waa kana Ronaldo waa kana Benzema u soo celi Alaba markana waa kana Rodrigo yes let's go soo laabanay 8 daqiiqo 2-2 waa ciyaartan taariikhdu ku sheegay El Clasico adiga maybe goal badan la iska dhalanayo waa waxa shaki ma ku jiro brand El Clasico ande Rodrigo waa kaas gooshiisa hadda uu dhaliyay waxa ninkan ma aqaan wallahi statement wax laga sii maaha goolashii ugu badan intaas markana waa kana Rodrigo weerar kale ayuu soo qaaday Rodrigo brand ku soo dhigay Cristiano ay ninkan oo Barcelona arkay ma gool no dhaafay kulata waqti والله اللي جوا والله celebration ka xawleena 2017 miya Atletico Madrid ku sameeyay walaana muro kadib Rodrigo ano xaabis laayb gooshaas ama asi oo isku qalajiya sometimes asi finishes oo isqalajiya moogtaa gooshin oo cunaya laakiin Ronaldo banaanka u soo dhigay kubad dhul tama taabanin xaalada Ter Stegen hada awood leedahay qabalada legend kan la raajic la rabnay ku soo laabto marka oraalka ay kulanka asasan ugu soo dhamaaday shaafi waxaan ahnay Santiago Bernabeu wax gool kama qaadanaysid baaba macsalamo baskiin ku laabtaan dhahay kulaadka Bilbao nagu xigay ay Alaba iyo waxa gool keenay Rodrigo iyo goolka saddexaad waxa u maleynaa Ronaldo keenay kulanka waxa nagu xigay lugta koowaad kulanka maxaa la Champions League nagu xigay hal soo galnay kulanka kale Real Vallecano hal ever gool darada ugu horeysay soo gaartay hadda marka waxa u bixinaa kulankan irkan iyo xirtiisa Alexander Isaac oo bixina weerka koowaad waa kana marka Almiron ay la ilaaha illa horta maxaa sababta laakiin ilaa hadda waa fahmi lahaa mar walba goosh ugu horeysay kan ugu bilaa weerar ku guure 6 daqiiqo marayso amalena weerar ku raana kan ugu bilaa waa kana Cristiano waa kana Son markana Cristiano let's go inta wadana ku dhahay Mr Champions League inta wadano laga yaabina Champions League ku dheelaa murugono maalintaadi taadi player caadi loo soo saarsaday xoog ku jiro ninkan bismillah nigba buliga arki Messi waxaas meesha ka caraniyo waa kana mar kale Alexander Isaac wow hada gooshaas wax ma laga qaban karo wallahi baranka laga soo tuuray you crazy man come on I don't know real life ka dhaawac xasad laakiin game markii la imaado wala shaba wallahi weeriyaan ka fiican oo ka da'diisa markii la fiiriyo weerar ka fiican ma baarkinba gool qurux badan oo dhaliyo wallahi
isma lahayn kubadda ani waxaan is lahayn ama Mombasa ama hore isku soo dhaqaajida hore usoo dhaqaaqi lahay alaaba iyo waxba aa loo gelinaya moogtahay laakiin aad waa kaas weerar kalena waa kana Karim Benzema asna weerar kale noo soo qaaday oo goolkii bareejada laba ka dhigayay waa daqiiqada badan kama soo wareeginba waa والله نيوكاسل lacagtii laga sheegayay waa caadi ugu muuqata sababtoo ah Newcastle hadda way xoog badan tahay Real Madrid hadda la tartamayso caadi la tartamayso wallahi waa kana markana sa maximum oo uu soo dhiibay kubadaas what dude come on hafsad ma ahayn kubadde adur wallahi hafsada uma leenahay kabaran la ilaaha 66 daqiiqo maraysa 3 isaaqana warniyo isaaqa yaa iga qabto cunugan I don't actually like Ethiopian Eritrean wuxuu yahay ma aqaan markana waa kana Valverde Eden Hazard come on Hazard let's go Hazard ninkan waxa waaye gadaal ka keenaa yarkii uu soo weydiiyay number 10 uu dhiibay ka number 10 waa u dhiibay so gadaal ninkan ka keenaa marka keenaa gool aan celebration kan waa ninka ugu baxda telefonka selfie oo ku qaado ugu baxda Rodrigo waxa ka laay Fernandes gacanta muddo soo siib رحاني والله لو سودي في البرد إني كاستون لو كساري هازارد كأقاني هدو صلابنا أكنا وكنا فينيسيوس جونيور وكنا هازارد وشودي لكن ولا قبتي روديجر وشودي ولا قبتي رونالدو let's go حاولنا كسرنا خشماهن سايش دي دقيقة منوزا ما أفري سدح محملنا شني أفرنا تعملنا aggregate كوالعلسك رونالدو ninkan والله مثلا Champions League waxa loo dhahaa wallahi baa xawaaye waxa ka jira meeshaas waa kana Ronaldo markan waa kana Rodrigo let's go saamarkaad waxa ku soo gaarnay quarter finalka saa ugu soo gudbnay semifinalka marka waxa arajeynaa ku xirnay nagu soo aado sababtoo bilowgan ilaa hadda wax yar nagu soo aado ilaa unta malaan fahmino kooxo weyn ugu soo aado marka jeclaalahay wallahi Ronaldo waa kana madax u dhashay soo siiyay oo assist meesha saas uu ka qaatay kulankan saas uu ku soo dhamaaday actually kulankan 120 daqiiqo dheelnay oo adiga extra time aadnay band anyhow والله شغف fiican qabada dab Newcastle quarter final la keentay والله شغف fiican qabatay ina soo baxay quarter final la imaatay والله wax kale Real Madrid ay afar yabir waxa ugu badanay Espanyol goolal Vinicius Junior iyo Benzema iyo aan keenay cunugan kale Ferland Mendy kulankan kale iska buufinayna Atletico Madrid bareja la galnay samarka Atletico Madrid hadda waa soo jiroona faande lugta koowaad marka semifinalka ida nagu soo Atletico Madrid lugta koowaad 2-1 kulankan kale nagu xigo horyaalka Almeria 2-1 ugu badiray kulamada markuu iska buufinayna marka kulanka lugta labaad Atletico Madrid wax fiican lama qabanin waxa kala baxan eber kulanka koowaad 2-1 ugu soo badan marka hadda PSG iyo Frankfurt qofka soo baxa final imaanaya marka si uu ogtahay PSG final imaanayso horyaalkan adiga laba dhibcood hadda nooga haysaa Atletico Madrid laba dhibcood nooga haysaa goolal waa ka fiicannahay waa kubad fiicannahay marka Real Betis 2-1 meela soo saarnay waa kulamada waa boofsiinooya sababtoo horyaalkan wax yar noogu dhameeyay Real Madrid kulankan Real Valladolid hal eber waa ka dhaxbaana marka saddexdaas kulan noo dhimay saddexdaas kulan insha Allah ta'ala next episode noqdonta hadda qaab ciyaareed hadii la dhaho waxa noogu fiican Baleerina 33 gool oo leeyahay Cristiano waa u jeedin waa son waa kana asna waa Hawaii sagata gool bisoo dhali come on son marka episode intaas oo kana insha Allah ta'ala xarjina episode kana waa la soo dalaa laakiin sorry insha Allah mid ka xig insha Allah inta waxaan leeyahay peace